hagaag kulanti wacan oo wanaagsan akhyaara idilkiinba meel kastoo nagala socotaan iyo si walba oo nala socotaan kuna soo dhowaada wararkii iyo xogihii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda magaalada Boosaaso. wararka naga soo gaaraya gobolka Bari ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa sheegaya in goor aan saa u sii fogeyn ay rasaas teel ahi ka bilowmatay gudaha magaalada Boosaaso, halkaasi oo maalmihii la soo dhaafay ay ka taagneyd xiisad kacsanaanahi. rasaasta oo ah mid goosgoos ah ayaa waxaa isweydaarsanaya ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland iyo kuwa BSF, sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka. wararka ayaa intaasi ku daraya in ilaa iyo haatan israsaasayntu ay ka dhacayso dhanka xaafadda Ridwaan oo ay ku taallo xerada weyn ee ay degan yihiin ciidamada BSF-ta ee maamulka Puntland. ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa noo xaqiijiyey in rasaastu ay ka bilowmatay kadib markii ciidamada maamulka Puntland ay ku dhowaadeen halka ay ku sugan yihiin ciidamada BSF-tu. sidoo kale dadka shacabka ayaa waxaa soo wajahday cabsi xooggan iyadoo xaafadaha qaar ee magaalada Boosaaso ay istaageen dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo dadka iyo gaadiidkuba. dadka shacabka ah ayaa waxaa soo wajahday cabsi xooggan iyadoo xaafadaha qaar ee magaalada Boosaaso ay istaageen dhaqdhaqaaqa ganacsiga dadka iyo gaadiidka intuba. xiisada ka taagan magaalada Boosaaso ayaa ka dhalatay xilka qaadistii uu madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ku sameeyey agaasimihii hay'adda BSF Maxamuud Cusmaan Diyaano oo ka hor yimid tallaabadaasi sharci darrana ku tilmaamay, waxaana kadib fashilmay wadahadallo lagu dhexdhexaadinayay labada dhinac si loo qaboojiyo xiisadda. dagaalkan ayaana sababay dhimasho, dhaawac iyo barakac xooggan oo ka socda magaalada Boosaaso. dagaalkan ayaana u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo ciidanka agaasimihii hore ee xilka laga qaaday ee hay'adda BSF Maxamuud Cusmaan Diyaano. dhawaqa hubka ay isweydaarsanayaan labada dhinac ayaa laga maqlayaa xaafadaha kala duwan ee magaalada Boosaaso, sida ay sheegayaan dadka ku sugan magaalada Boosaaso. ومحمود سليمان شبكة ورقة سول 24.